shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega e-Dahab ومية بحث وبا أفرادي دوا أفرادي هو بحث لكن أبليكيشن كان دويان كدل بنياسي أنت ذا كان نوعه كانوا أتروون حالات من لقيه لي أنا يقول صدر عن الدين يقول دروب قواب ونكسني صوت البضاي تشجير إيريا كان حالها هنضل waxaan ku guri cashadii iyo wax walba diyaar kitchenka magana kitchen dambe geli karayaba magacayga waa Saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy هيا حبيبتي خير كورعاو والله aad baan faraxsanahay سلام nolosheedii farxadda oo soo kale imanaysa ها والله waxaan sameeynaa harka goorban ka dhignaa jimcaha iidka iidka waran iidka wanaagsan sababtee iidii farxad adana ilaba farxad uun bis ku baganaysaa waran absolute waa dhamaad ya intaan iska dirayo intaan dirayo adaguna hawshaadii dhamay bas anaga faraxsan bila warwar soma waa iid waa meherkeeni bismillaah hello ina adeero khayr ina adeero saskama fiicnid alxamdulillah waa ala ma sha Allah waan wanaagsanaade ina adeerkaygi qaaliga ahayo waxaan ku wuri maanta daarin baan kugu socday haye ina adeerin odaygi ma garasa maalintii aad eriday inankii aad eriday haddaan wada joognay waliba maanta been baan sheegay waxaan ku wuri corona virus tirtii baa bishan lagu fasaxay mushaarkuna uu ku socday ina adeerkay uu kugu soconaya shaqada walaalkay qaali raalaha baan ku wuri maxaa been baan sheegay maanta waligeena ma been sheegin أنا وصلت يا علي يعني قال إيه هاي وصلنا بتشعل لما أنا ما تقانا أي مرة هرنا هذه كاسين وكوا عشان بس صح إنه كنا دينا نقول لما هاينا اللي كان يجوا هايو وحلا بنامنا وحلا آخرين كرين وحلا قد كرين هاي لأن في عنا وادي مشهر ولا سنة ولا قرية أبو ولا وين أوجا ينادر taasi Soomaaliya bay ahayd laakiin shirkadu marka horeba waxay qaadatay u baahan tahay qof aqoon leh oo shahaado wata inuu wada shahaado muuqdo hay marka inaan anigu waxaan ku qarinayaa markasta ku sheegayaa waxa weeyaan inanka meelaan geyn karo ininka ma hayo xaaladahan faraha badan ee imika waddanka ka mid yahay oo shaqaalihii meel walba la dhimay marka intii temporary ahaydna ay ka bixiyso marka anigu waxaan qoran lahaa waxa weeyaan inankaasina gaarigiina hasoo celiyo shirkadda ha keeno ma ilaa gaarigii baad ka dhigaysaa in adeer ha xamaasho oo koodiga ha galo oo ha shaqaysto adigu moodi
inaad de beenta sheegana maxaad oran والله زي ما كمان بين كلام الشيء هو واحد كده عفاف المفروض الشيء هو يعني مثلا هو بيقول هذا بنتهى لكن هنا كا جمال خلوا إنك تيجي وعن مال خلوا إنك تيجي ما هي حقيقة فكوا حوالي هذا كون كهانية والثمان وأكيد ومكورنا كل شيء وإنه كنا سجعنا عنه حول الجنين ومكنا وحبها وكذا يتفكر أبوه وشكهني لا تحلى شيء لا تحبه ودي كان كذا أما بيننا خلبه هذا ما واحد كوري هذا ما محسن يا ninkii dhannaay mas'uulka ee guriga aan wada joogno ayaan been u sheegay hadhowna sidoo yaamini bal ya beenile waxa yiri beentaada runtaada dambe disha ya bal wajigeen kula hagaagan iraada adbay shaqadii baan ku marka mishaarka toontaan ninkaas dili doona wallahi bal labadiina tan lagu dhaxdhacad karto warkatoon walaalaada inka marka xaga isayta maxaa talaa wayna masaxaadeedii horta bari doonta masaxaadii wayna bari doonta oo ka adana inaad arkay ku soo celiyay farxanaga kaas qabto wuxuu igu yiraahdaa hey hello hello hey marka ila adiga xumaan u arkay hey insha Allah hadda hal ma ku badiyo sheegaysa waa dhibo mid kale oo shaqada ku helaya walaal ana laftigayga waaya aniga laftigayga shaqo ma dhisin adiga ma masaxaad yar bay siibate إنك كفاك يروح إنك كوب الله قال يكره إنك ما هيه لكن هو خلاص وحلي حدي العالم وحلي العالم وخلاص حلي تدور مقصنا ومساحات بعد السنبا ما تحاول تروح كوب الله قال يكره ما هيه خلاص وحلي والله ويقنعي نادركي بل إن أنت هوش هذا قليل أن لا هذلو مين هين عروس كيو عندكو سوق بل إن أنت انقراي هلو السلام عليكم عليكم السلام إيوارن إقلال خير كل شو دوي مانجمنت في عنتين خير والله الحمد لله رمضان كريم رمضان كريم ولا waxaan doonayay halo waxaan doonayay inaan walaashay aroos aan u qabto ma ogtahay waan ku qabanaynaa wala marka magaalada imika hadda meel kasta oo xiran tahay hoolkii de waxba ma jirey marka de soo kaadiga banaanada aad u qabanaysaa xafadaha badan de waa la sheegay ma ogtahay marka waxaan doonayaa de si katar oo fiican arooskii aan u qabo marka de aan isku la hadlo baan rabaan halkeen isku nimaadnaa walaalo horta xafladda tasharku ku sameeyna waa inuu magaalada wada xiran tahay hoolashiina ma shaqeynaya sidoo kale dad anagu lafteedu waxaan ugu tagnaa dadka marka waxaan sameynayaa inaan kugu imaado goobta aad joogto aniga wada gaarigayga okay waxaan joogaa royal queen inaad adeerka u tahay xaajiska ilaali oo ka feejigno oo meel dheer u marban koonada anigu waayo gurigaaga ayaa bishii uu ku riyoonaya inuu isagu leeyahay uu isagu saacada laga bilaabo qaatay uu hantiyay ayaa isku haystaa marka anigu waxaan ku oran lahaa meel dheer u mar amtay way dhici jirtay taa ku gulatay la oran jiray gabiyaha Allah naxariistay maxaa nuur badan la oran jiray oo reerkiinu ahaa ayaa qaar sidaas ugu tageen dee gacalka ah solka ah ما بعد ولا شيء. نقول أن الله ضبوها. قندراسية يبقى قاعدين كذي إنجليزي. والله كلها ماشي. نحن أبغى نقول تعالي أنا وهاي أفتهمه. وضياش الدين كشرا مدخله. صومالي ده. أنتي دمبا أحد العدي ما كان سوقي. أيوة تشذي. isaga u tashadeen waa imka halku ku taagay waa arintii imka ku taagay waa soo doonayay ka taqalusaan bay doonay isaga gabigiisa naagtana guursadan xoolaana qaatay
markaasuu gabay tiriyey waa gabay la yaab loo iskuullada berigi hore lagu dhigan jiray adigu waad yarayd oo maad soo gaadhin iskuullada lagu dhigan jiray wuxuu leeyahay nimankaan lo'daydii casay waa gabay dheere laanta ugu duugay nimankaan dukaamada lukiyeen laba u siiyey wax lacagta jeebka ugu shubay lahan lohii caydha wax la liqiyo xoolaba raggaan ugu laxaad yeelay hadda aniga leebkii warmaha ii dhisanaya ma liibaanihii diiriye garlooxu daabacay waatay diinkii maqleen leebabka lahaaye waxba niman liyaynaynin luqadii raaceen halkeedu ninkaas ayay isu dabaguraysa maxaad ka sheekeynaysaa intaan wax siya aniga iga bilowday kuugu xigaana kuugu daran ilaa xad marka adiguna siraali suu doonaha yeelaha markaad u dhisto aniga waxa waajib ka saaraya inaan ninkan tilmaamo waxbaro il u furo magaalo waaran marka ama hadduu dee business garanayo business baan baa furi lahaa mar haddaad meelo furtay waad meherado u samaysay wuxuu kaaga baahan yahay habeeraati ma jirto wado waad gacan qabato waxaad ku tiri reerkaaga hay soo dhaqo wax ku dhiso waxaas waa u doonayaa inantana way hagaajinaynaa dhag ما يمكن إن شاء الله في لقد بلا بدنين واحد نقطة مجا عليه وأنا فريدة وحفظة ديالهم وياه وأنا فريدة سوي يعني إن شاء الله خير بكم بين الساعة أيوة رهيبة نايا خير وعلى waxaan kuu talagalay dad og tahay ya arooska ya waaba naxnaaya ma ku soo dhawaadeen arooskii waxaan doonayay hadda inaan baan ballamay mika way noo imanaysaa ma og tahay intay noo iman ka hor baan rabaa dee adigaan kula tashado aroosadii magaalada waxaa aroos waxaa lagu qabtaa hudheel weyn hool baa la kareystaa kadibna fanaaninta loo dalbadaa adduunkaa la isku imanayay ma og tahay maxaa tiri arooska dee magaalada waa sida arooskii waa sida baligu ceel hool baad la kareysanayaa fanaanintii waa la dalbanayaa yaa laga dalbanaya dee waan dalbanaynay ma og tahay marka waxaasna imika ma jirto waa la diiday dee waxaa la yidhi corona viruska un bay naqarabay ma og tahay marka waxaan doonayay yaa walaashay macaan waxaan jeclahay imika meel arooskaagii bannaanada oo cid ma imanayso may halkeed u faraxsatay bannaanku waa miyuune anaa ku fahansiinayay meel bannaan oo qurux badan oo fanaanintii macal waan dalbanaynay ma og tahay halkaan geenaynay kaagii habeenkii dhaweyd aan ku geeyey maad garanaysaa kurusaad ii sheegaysay oo wakaas kaagii adduunkii oo kaameradaha ilaa irka laga duubayay yaa bismillah iyo idiyo dhaqan baad xidhanaysiin adduunkan kaalay arag laakiin dee waxaan ku yidhi iminka adiga waxaan u baahanahay farcay waxaad ka naxnaxaysaa iyo waxaas joojiya waxaan jeclahay adiga faraxsan oo si fiican aan kuu dhiso arooskaaga aan qayb galo oo waxaad jeceshahay aan kuu sameeyo iminka inantii bay noo imanaysaa waaye horta aniga dhegeyso inantana maxay qabanaysaa inantii wayaan dee qoladii inoo diyaarinayaan arooska inuu miyana gacmo lahayn dad noo lahayn hune weli ma fahmaysid adigu si fiican idhig waxaa horta maanta baad akhriyaysid ma ka fahmayadii waxba kama faaxal gelin dhow kul muxuu ka yaqaanaa marka garan ma waxaad akhriyaysa maanta bee eeg wana weynay arooskaygi tahay naxnaxintana inoo dhan baa lagu yaqaana waa la iska sii naxnaxaa laakiin arooska walaalda eeg si aad cadawina cabayga tiiriso loo ogto inaan magaalada dadkiisa waxaan ku yiri qaar badan waxaan ku yiri aan isku haynay naagtii xumeyd iyo jeelkay ku riday ayaan doonayay indhaha arooskii uga la soo baxo waxaan doonayaa bahal aroos oo inta bahal awro intee leeyo kurusku intii lagu qalo lagu gowraco waxaan kaloon doonayaa aroos rasaasto Soomaalida banaan baa laga dhigay magaalada banaankeeda Hargeysa soo gaadho Hargeysa madaxtooyada duqeyso rasaasta lagu ridaa waxaas ma jirto Hargeysa iyo magaalada waxa soo galay odayaashiisa la waxa isku daba yaacay oo anigana dumarkii saa ii soo kaxayaan anigu adigii dhowr kala balbalaaran iga horeysana saa inii daba galo waxaan doonayaa waa tamad awoodin horta sabab lacag badan baa may adigu saadu eeg awrka Yusuf baan ku ornay geelin xabad soo dhibtay qoryahana ما بابور لما صار كذا ماشي اللي كبر حنقي إيه قريها أنا وهنا ميل من فسوهيل سجى سوهيل جذوة البابا سجى يقاني
dee gurigiina adiga ilmihii baa laga ilaahay baa naga furtay waxaan hoolalkan waxaad sheegaysid aan ku siisiyo waa qayb faham ya adigu wali hay dhasaan ku raada tadan sinaytay may si kasta tan ku raadona dee waan ku fahmi laayahay imika adigu waxa jeceshahay aroos kale aragmaynayn dee aroos kale soo ku sheegay kula geel adigu geel waa caadi ma islaam xaqan hayga soo wadan Yusuf xaga laga soo bixi hal iska kay hor keeno Allah waxa jeceshahay ku qalaya laakiin waxa weeyaan guriga markaad gasho ducaadii ha ducaadii laakiin taqbalay gaalada la qabsatay dee ma islaamka shaqeynaya iyo dadkan iyo ummadahan ba maxay heli karanayo cunaya alla bariga waxay markaa guriga gashay guriga maaga cunna markaan may waa la iska duceystaa ma ogtahay ducada habeenka la shaqeynayay nimanka arooska taagay iyo kuwa xabada riday iyo kuwa geela qalay iyo kuwa soo galbinaya siinayna habeenkaas la cunaa bal inantii soo socotaa bal inantii markaa waxay noo odhanaysaa haddana waan inanta marooskayga ila leedahay alla saan inagu leeyna adeertiba adigu walaal tahay waan kula tashanayaa halka dadka sheeyaan garanayna arrimaha igu soo iyaga diyaariyaan anaa ku faansinay maxay noogu ma hada ha okay iyaga ma diyaarinaa ma hol yareynaya de waxaan doonayaa weydiisay noogu yar صاحب صاصعه هذه سبلي ورا في عن صاحب مولاي حالدها حالدها والله ما شاء الله أبن في عنها كودي ما شاء الله ده أرنتن كوهي وحويان فليقعد عارن قديه يساعدكم أرنتن كوهي وحويان إن واحد شراع صحابنا هاي صح وقرب شوودي بده يميلها كين صح وان قرتي إن كي مركا waxaan ku ri inay nama ku baraya صح anigu horta markii hore iga dhamaan way sidan adigu sidan horana waan ku ri nin marabe imikan dhaawac kale ka baxay tan xaalkiisa kala dhamaysan ha marka waxaan ku ri nin shidan oo waxaan ku ri qurux badan oo wanaagsan baan ku baraya hay kawdhi hay marka waa ibi guuri maanta ila soo dhaxay ugu waxaan doonaynaa toon iyo meelaha ay raacdid waxaan doonaynaa soo tacar bixiyo caaniyo waan gartay dadna waxaan ku ri kuma haleelay saddex shay waxaan ku maqnaano doonay waxaan ku ri kuma haleelayo laakiin intii wadiga gudoomisa waan ku baraya diyaar ma tahay ma aniga saaxiib leedahay waa caadi saaxiib loo leeyahay meene ay leeg oo imkaan noo qaraacaya kawan iskiin baraya kulli wala iskayga wax walba moogtahay may barasho horteed bareer la soo imkaan noo qaraacaya markaan kula hadashiinay waan hubsanana kulli waba lama heli karaa mala uu baxay wade way dhici kartaa laga yaabo inuu ka baxayba oo qaban ma uu dhacayaan laakiin kuwa saan ku sheegay waa inuu qurba joogo kawdhi kale naan ma laha laakiin uu leeyahay kaan ahaan saaxiibada wajigayga darteed baan ha ana waxaan ku dhaweynan geenyo qalan jaaban ku baraya idagisa saaxiib هي صاحب وقتينا كوغو دغدغينه دوخا غارت بالكور صاحب والله دوخي وهاد بل horta ninka iga war sidii calaamadiisa sidii ninka calaamadiisa doorto nin ku bijoogin ku bijooga iska sawiro waa nin dheer aan xoogna u gaabnayn wala casli mayraga minin calool weyn meeyay marka biska calool iyo meel kale marka manin shidan oo dadkan daymika isteelka inagu isla fahamna saaxiibe waa cad booy waa nin ku bijoogo isteel la roo waxaan kurkaa aragada geejisan mar walba xasan anigu maaro isku tagay de marka waxa saaxiib isku dhaafinaysa adigu ina kiye anigu waxaan isku dhaafinay de mar rabo anigu mar rabo imika waan dhaawacanahay heart broken baan wali ma soo kaban ma garatay sax markaan soo kabto dadkii soo qanciyaan soo xaysanaya oo marka aad soo dhaafinaysa dooqaygi ma aha badeed ani dooqaygi ma aha eegna ku qurux badan yahay laakiin de anigu waxba aan qaadi karin sheekay xasan qaadi karin marka adigan ku ogeynad waxba bilaad wax tahay dad iska fadhido xasiri iyada aad beertid sheymaad beertid baasiri iyada inankaas ku soo baxayaan inankan waa inaan waxaan ku guur u diyaariyo nolol iyo mustaqbal adiguna waad iskaga diyaar baatay وانا كل ايه يا صاحب قالي كل هذا دوخيغا نقدون وين انا قاعدون دوخيغا هنا ما دوخيغا نقدون وده ودي adiga hadu doخيغا laakiin anigu markaan arkaa doخيغا noqdo indhahayga ay macalno markaas umbaan arka harki kara waa sax wala baraya ka waramay soo iska jaabinaysa cid ku ma qasbisaday adigu qancin waa in dawidi kala waan ogolahay saaxiib qaal waan ogolahay marka kaasi baaqaya inanta timid ba السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سكورم ولا في عندي الحمد لله خير ما شاء الله
aroosadii maada aroosadii wata adna aroosada walaasheed ku soo dhawaada Yagleel event management Yagleel waxay ka shaqeysaa qurxinta qabanqaabinta iyo qorsheynta xafladaha sidaad ii sheegtay waxaad leedihiin aroos arooskana imika sidaad ogtihiin waxaa jira xanuuno aafa ah oo fidaya marka wala joojiyay howlashii aroosyada iyo guriyada wixii lagu qabsan jiray in loo baxaa banaanada xafladaha aanu qabano waxa kamid ah inaan qurxino xafladaha guriyaha lagu qabto kuwa howlasha lagu qabto kuwa banaanada lagu qabto kuwa miyada lagu qabto eedii dhaqankiya kuwa lagu qabto bada xilligeeda iyo nooc kasta ay xafladu yihiin markaas ta doonaysa lidka ay sheegi doona insha Allah okay waxaan doonayay banaanada banaanka marka hidiyo dhaqanka oo hidiyo dhaqana in hidiyo dhaqanku wuxuu u qaybsamayaa waxa adeegu wuxuu noqonayaa dhowr nooc waxa la idin qabanayaa in goobta oo xafladu ka dhacayso la idin qurxiyo in kooxdii hidiyo dhaqanka la idin keeno qaac la idin tumo markii ay timid ay dhacdo xanuunadani waxa la qaatay qaacido oranaysa kala fogaansho bulsho marka dadka la casuumaya ka badan maayaan 20 qof 20 qof oo la kala fogfogeeyay okay hay فين؟ 20 وحورنا أنت خريس هو فين؟ ها هذا يقعد عندنا ما تفهمي؟ بعد هاي waxaan ku weydiin walaal marka waxa tiri waxa allaaleeyo wixii yarasku kusay anaka dhameeyna anagu nafteedu ma keenna timaani xabadihii iyo ku jirin rasaastii cirka loo ridayay iyo odayaashii iyo wixii iyo maxay ahayd fardihii iyo asmaan walaal de xaflad rasaasta la isma dilayay laakiin isma dilayay ma jawaa ila fantasiye xafladu waxa ay noqonaysaa rash ee la qarxinayo dabaaldega xafladu wuxuu noqonayaa in rash la qarxiyo rashku maxabad yarba waa wax u dhigmo oo kale oo dadku maqlayaan laakiin xabad ma maqlayaan xabadii ila cirka saa u sii ooleysay iftiinkeeda laakiin may taasi waa ina soo xidhay hadii la naga arko wadna khiya ama aniga fahansinaya na garanaysa marka hay marka in wax kasta diwaan fahmay oo fiican yahay marka qarashku wuxuu noqon doonaa qiimo ku raali galiya hadii imika horta intaas soo adeega aad dooratay way adeegana dhameystiran dooratay hadaad wax iska reebto waxba iska reebay waxay noqon doontaa waxa lagu xisaabin doonaa qiimaha uu noqonayo marka waxay noqon doontaa qiimo ku raali galiya okay waxaan ku soo diri doonaa qiimo sheeg ama invoice okay ayaan ku soo diri doonaa ku keeni doonaa hay waxaan ku yiri maxaa ila maanta kaga dul wareegaysa la faa kaga dul wareegaya hortaana kula soo hadlayay oo ku yeeray waxaan kugu yeeray waxbaan waan yaaba marar baa sanad riyoonaysa oo soconaya waxaan ka yaabay waxaan xalay baan saa u fadhiistay meelo waxbaan ku riyooday markaasaan haddana maada fadhiya mooji wax aan hayba gabiga oo iskaran waa imka waxaan leeyahay hibaa qoys ka dhanaan waxba ka maqan badileysa waxay ka maqan yahay haray waxba deemay saab maaha macaan siritaankiina laba yaaban u qaadan lahaa anigu waan la yaabanay laakiin ilaahay baan ma hadnaqay markaas aan arko inay waxna dhamaanay allah inaad siyaa ilaahay yaqaana ayna radna daba naga xishoosina maanta waa isiraysan iyo israacisan iyo isla joogaysan nala daba shoon odayga baa waan la hadlay adiga baa markaas ay mareen koodii markaan la hadlay si wanaagsan baan horta markii hore wada hadal waxaan ku leeyahay doonade inaan la doonaado waxa la dhalay koodii una de garanaya odayga baa wax was garanaya hase ahaatee aabahana dhaxantiisa waan hayaa inuu geel jecel yahay wargeeyleen waa wixii waa iska wasodogay bicidan naab may waxaan ku odayga geelad ma garanaysaa odaygina mar alla markaan halka geela kala hadlay baa naftu ka dhacdo hadda ma xara laga bixinay maxay naftu wadaas maanu sidii laga bixinay wuxuu iska lahaa inay yaro de magaalada degiya lama kala qaato de magaalada mi jooga soo de ismada inuu xitaa gabadh magaalada mar alla markaan ku odayga ku yaala ayu qaracma geela ku dhinta ayuu yiri war ma doonatid mid geelo markaan waxba doonan maynay waxaan u soo marnay rafaadkaan u soo marnay baan ogeeyay allah ayana soo martay de allah wada fiye shimbirayo kala war waxaan ku war baanad ka hayn gabadha waxaan maray hay markaan ku sheegay buu yiri wallahi gabadhaasi gabadh qaayala waa haydo ninkaasi dumar qaayala buu dhalaa wuxuu geelan u jeeday koodi laba ablood horena way naga soo galeeno
ragga inoo dhalan ilaahay afku keenaya kan ku dhamaanay baan ya kowd markii horta soo hogto waxaan ku adigu meel xun baan horta isla gaadhay meel xun baan isla gaadhay adigu yeelkeedii isfahanay صح waa loo tagayaa waxaan ku way maana baandi islaha tagtayna waan islaha okay xagaadi waxaan ka doonaa marka ya waxaan ka doonaa waxaan ka doonaa meena isku dhisanay mamiigi hada maxaa ka ma sagaal habaar kale reeyaan qaba maxaa miyii u celinayay san ugu aroosanay miyii wana cadaa goorta doom sad saxray xamuujisan ya wana xayda ma in kan siri taagnaa bakar ilaa yeena isla go'inay heede maanta maxaa miyigi khalad ka fahmin waa khalad ma fahansan miyigi inta ku soo qalabkiisa waa ay sabab walaal walaal qaal quruxay heede miyigi khalad ka fahmin khalad ma fahmin waynu tagaynaa anigu ninkaygani waxaan doonayaa 10 nool maadarada baan soo dhisa arooskuudi 10 kiiba waxaan doonayaa inay dhisaan iyo 20 200 nin i ciyaaraan konton qori leeyahay anaga kuweena qaar la soo kooxo rasaas lay waxeeyo imika halka malacag farduhu saa isu dheegayaan soddon labaad 5 awr iyo 20 awr lagu qalo la haago shimbiru macaadirgaan dad iska daayiyo meel bashimbir lahaa meeshana waan ku dhisan karaa anigu laakiin se ma hade meel aniga arooskayga miyiga waxa laga sheekeynayaa 2 sano laga sheekeynayaa maalintii cagaaga waaro maalintii halka uu ku dhistay arooskii hebelbergi xitaa 10 sano ee dambe dadka dhalan doona habeen sanadka dadka dhasha qarniyada dambe la oranaya xilligu dhashay waxa berigii day u dhisan jiray Yuusuf arooskii xilligii gugiisii xaga dakadayga ma kuma jeerin maxay arooskayga laga sheekeynaa wallahi halkan waxaan dheeraay waa anigii waxaad sameysay adiga baa qof haye maxaad kala wareed waxaad sameysay horta miyigu waa halkaynu ka nimi waa halkaynu ku soo dhalanay waxaan ku soo aqliyay saneynta ku soo leekana ku soo ciidanay laakiin waqti xaadirkan de go'aamaynu ka soo gaarnay inuu ku midaysneen magaalada ku soo galno wadna adiga daba timi ay walaal magaalada ka saari maayo ma soo dhisanayo halka laga garanayo meesha laga garanayo inta noqdo hadana soo noqdo maxay soo raray 20 geedi gelinay ya de aroosin ku soo dhisan lahayn ma ku soo dhisanay halka ma saa doonaysaa way aniga ay warayso waraysta in adeertay munacad ayaa maanta ii yeedhay hay boqol idageysa ilaa lama joogto waxane waxaanta marka maanadi war xamanaysa maxaan ku waxaan waynagu waxaan kala qaleenahay baa imka ay waxaan kala leeyahay imka hoos la xamanayna inaga saxam ay wad xamba ma laha aan uga shakiyay ugu warwaray way yaa dhamaanta haye arooskaagii aan taabanaya bay gutay barnaamijka ilaahay aan kugu dhaarshay iyadoon alla walaal goobay haye waxa arooskaagii aan taabanaya waxay tiri waxaan kaaga dhigi lahaa meel waalahan maxay la dhahaa khaarna maahe waalahan waaweyn guryahan waaweyn ee sufran هذا خارج مركز راسك مدقيق حاجات بخارج وجلين بدو وارنت كما واحد واحد شرحنا ده يعني واحد عارس كان كلا عرري والله يوم هذا يا غني مدي سامان كوغو شيغنay يعني inuu bakhara la isku inuu meel weyn oo dib hool ma taqaan deewaanka ku garanaya walaale waa hoosh waa u dhalada oo dhalada deesan waa weyn kooda halkaas ay tirwaan idin sharaxaya ay istiri sharax ay tagto la yiri dadna xanuuna jiro wala joojiyay arligaas oo dhan dibmiga xanuun baa ka jira bareeg waru ka idageyso sida idageyso waayahay dana hay horboodin haye adigu hadal iyo dhamaan inantii sidii kaga may harinay qol ay u tagtay aroosyadii waxa dhiga haye waxay tiri waxaan doonayaa inaad aroos sii dhigtaan haye aroos la qabto qoladii bixta noo timi waxay tiri barnaan baa la idin sharaxaya gaaftii adigu ilaa halka intaynaaba waa banaan waan gartay waxay tii banaan baa idin sharaxaya hidiya dhaqanka caanaha maxay heeday muqmada faracada war adigu meesha waxay dhaqano ka maqan aan jirin aroos dhaqan adigu oo umada dhan la isugu yeerayo ayaa idin sameynaya dabalka war aroos dhaqan bay tii aroos dhaqan waxay tii magaalada laga baxayo يبوقيله وارتباق وسي وناكسن ولا ويا مد كلا يدو يقبانيس بدنكيسا waa si wanaagsan dee ana wixii aad reerkiina kugu tarayaan ma hortaan arooskayga daladeerka baa dhisayo bixinayo qarashkiisuba meel biska yaala anigu waxaan doonayaa macnaheedu meel dadku ku shaqeynaya halkan dad kooban baan ka aqaana in yaro aad dib uga ka aqaana 20 qof kaliya la keenaya ila xanuuna jirin aroos xanuunka ma ka fogeyna wala kala fogeyna anigu xanuunka kala fogaadaan istaha wala may kala fogaan may
meel bina xanuuna la tahay maya ma rabo waayo horta qof wax jecel waalan anigu ku qasbanay wax laala waxa tahay way igu sanduuq sankan kaga torana qof wax jecel waa halan baa leeyahay marka horta anigu wixii aad tiraahdo talada soo jeediso sankan kaga toranahay waana ku sanduuleysanahay waan iska yariya taada san qaadanaya taayna adeerta dadkana 20 qof bay keenna 20 qof baad garanaysaa shanna keen hadaa doonto adaa wado adigu ma imanaya kowdi adigu ma imanaya magacayga waa Saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy ومية بحث وبا أفرادي دوا أفرادي هو بحث لكن من أبليكيشن كان دويان كدلبنا ياسي أنت ذاك النوع كانوا أتروون حالات من لقيه لي أنا يقول صدر عن دينه يقول دروب كواب ونكسني صوت البداي تشجير إيريا كان حالها هنضلبه waxaan ku guri cashadii iyo wax walba diyaar kitchenka magana kitchen dambe ba gali karayaba shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab